السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيتين صاحبتي في عنتين ما أنت قرقة إن متجوجو إن وحن جوجا عزومات من اللي عزومي مال يروكون وقروح بدنا هلا ماشي أنا محن هاي قصة حلقة برونتيسي ماشي كتب مرك إذا آدي أدو مثلا أنت قصتنا بلابن سبسكرايب كإسارة هدان ولي إسارة جزاكم الله خير. إن قصة أنا توحي كده عادي ما أنتو هاي جينا عسي برازيل جينا يا برازيل كده عادي قصة عاديا سيدا أكتين برازيل وحا laga jecel yahay maxaa la dhahaa football laga jecel yahay laakiin channel oo waxaa soo baxay waqtigaasiitood oo maxaa la dhahaa program laga soo deeyo dhacdooyinka programka laga soo deeyo marka maalinta banooniga jiro banooniga xataa dadka ma fiirsanayaan ama la soo deynayo dhacdadaas la fiirsanaa dhacdadan waxaa waaye dad la dilay markaas iyadoona banaanka lasoo dhigayo dadkii la dilay dad la jarjaray banaanka lagu dilay dad dhibaato gaartay dad gaari ku dhacay adiga waxyaalaha ka dhaco wadanka oo crime-ka ah life loo soo deynaya marka waxaa la sameeyay ninkii TV-gaas lahaa wuxuu ahaa nin oo maxaa la dhahaa booliiska marka hore u shaqayn jiray ka ruqsaystay oo channelkan furto ahaa marka saas siduu ahaa channelka TV uu ahaa marka hore marka saas siduu ahaa wuxuu ninkii magacu yeeshtay sumcadoo yeeshtay TV-giisa wax badan ka soo galay wuxuu markaan aniga waxaan rabaa inaan dowladda meel ka galo dowladda rabaa inaan ka doorto senator inaan noqdaan rabaa gobolka ninka xukuuma camal aan noqdaan rabaa aan rabaa marka wuxuu sameeyay wuxuu wacday nin oo reporterka oo usoo duubay marka hore asaa bursan jiray oo meelaha wax ka dhacan degdeg ku tegi jiray oo soo duubi jiray markaanayto laakiin nin oo soo jaartay oo journalist ah shaqada u qaban jiray ووحا نيك حليا ميل هبل بحتك وحا كدعويو هورا كسو قبو وبحا نيك إسي كاميريز دادك اسبرسانايان ماشي يتقايان قبل كي أسونا بنانك سو قارين أساسو قدبنايو شعبيات بدنو يشتي حتى اللايف على فرسنا ولو يماذا ماشي ستوريو قالوا إمانا حتى اللايف على فرسنا تيفي قنو ولا قسو دينا لابضبو مركا dad badan kusaas meesha ku yeeshtay maalinba maalin kamid ah markii wuxuu haweystay in oo sheekadaanitood meesha uu rabay uu taagneen oo wax kasii badan uu rabo wuxuu soo ijaartay nin kale asigana oo ka soo ruqsaystay booliiska uu soo ijaartay ninkaas wuxuu yiri dad ii soo qalqal videon iga soo dub markaas ka bacdina live kan gashanaya si ay ugu bataan dadka ay u yaabaanba dadkii waxaa loo soo duubayaa dhiigiyo da'ayo dadkii oo la jarjaraayo adduunyadii oo qasan waa loo soo duubaa way barbaan way fiirsanayaan marka dan booliiskiyaa soo dhexgalay meeshaanitod wuxuu yiri sheekadan saas ma soconaysee meesha wax ka socotaa la soo fiiriyo meesha la tagay video dadka soo duubayeen ninkii oo soo ijaartay askariga ahaa wixii dhan la soo xiray askariga marka la soo ijaaray oo la soo xiray wuxuu tagay maxal dhahaa oo la geeyay station la geeyay wuu fikir wuxuu yiri aniga intaas oo qafood oo tuuga aan xiray oo gaarshir ku jirto hadii la qabto oo gaarshir la igeeyo wax iga soo haray mare maqaarkayga lafeeyga waa la kala bixinayaa dadkii shalay aan ku tuuro meesha oo soo qabtay way sugayaan maafiyaasha ahay marka waa la baaba'sanaa marka waa fikiraya waxaan sameynayaa waxaan la galayaa shardiyan waxaan la galayaa booliiska si ayna iigu tuurin laba jeer waa la xiraa dadaa dile si laigu tuurin dhinacaasaytood oo ammaan la isiiyo oo si ammaangelin la isiiyo oo laigu xiro meel gooni guri qool gooni ah meel gooni oo dad aan laigula xirin si laigu suubiyo si private ahaan laigu xiro baa waxaan sheegayaa diilaa la galayaa wuxuu yiri shaqadan wixii ka dambeeyay meesha ka timid كل يفرتني إكسارة وحنا أباهنا لكن أنا مركي لحكومة أو ماشي اللي جينايو إني يوحرو مال أو محلها أو أمان أم كهلايو عن ضد كيشالة ولا أم مقالة عن كأروريون حري يعني يقرأ إنه نفط يغادن واي هدي الكلام الله قاله شاغل ده مركي أقول جري مش وحيقولوا جري السنة تركا يقولوا جري وحنا أنا شقام كل هاي المسكيرة ها مقالة كجوجا سنة تركا سوء إجارتي ولا عكسيناي وحور ربي إنه ساس بابولار سفيع عن أوكسين نقطه dadka jeclaadaan oo channelkiis ugu weynaado markaas anigu lacag siiyay wuxuu yiri dadkaas soo qabo soo dil filimna ka soo duub marka qisadan aniga kaligay ma ku jiro ninkaas ugu jiro ani hali amaan geliyo dadkan yaa lagu dhex tuurin gaar jiro wixina waan siiyay hayaa liir ninkii yaa loo baxay senatorkii waxa lagu soo qoray newskii wixii markuu socday lagu soo qoray senatorkii markuu sheekada fahmay cabsiya soo gashay gurigiisa la jabsaday booliiskiya jabsaday wuu galay waxa cadeeyay nimanka inuu dilay rag la dhintay oo la wada garaacay dadka la dilay la gogoostay oo list dhan u qoran ninkii baa u saaranba gurigiisa
u yaallo warqadihii markii la baaray dadka dhinteen dhan sida loo dilay iyo wixii lagu sameeyey liisaa meesha yaallo liiskiyaa la arkay marka ninkan warka oo sheegay iyo gurigiisa laga helay waxyaalihii magaci dadka laga helay wixii marka la isku combine gareeyay la isku dardaray ninkan inuu yahay qaatilka weyn inuu asi yahay sidaas lagu ogaaday ninkii muxuu suubiyey xeerii fandhaal way kala dhacdo yiri boorsidiisu wixii haystay ku gurtay wuu dhuntay senatarkii oo waxaan soo alif oo videoga TV-ga lahaa wuu dhuntay wuu cararay meel baadiyo galay beer dhexdeeda oo la gali karin oo galay meesha isku soo xiray 4 maalmood ku isku sii maqan yahay oo cirey dhow laga raadiyay oo la soo waayay ba marka dambeetod si nasiib waxa lagu helay meeshii oo degnaa oo baadiyada ahayd lagu soo helay lagu soo sheegay meeshii la tagay waa la soo qabtay marka la soo qabtay wixii lagu cadeeyay maxkamadii la geeyay asiga ninkiiba waa la xiray waxa lagu xiray inay noloshooda ku dhameystaan gaar shirada ay ku dhameystaan lagu xiray ninkii laakiin sidoo saas u ahaa meesha nin dhig badan cad u ahaa Soomahan ilaahaba ka gooyebo iyadoo la isla gaaray meel dheer oo gaar shir oo ku duqoobin waxa ku dhacday kaliya ka fariistay cudurkii kaliya ku soo booday naftaaba ka go'day wuu dhintay halaas dhiga ku maqnaayeen waa loo fududeeyay ninka waa dhintay marka saaxiibayaal inta saa idin wadaagay maanta maxaa la dhahaa jazaakumullahu khayr rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan ugu baryayaa naxariistiisa inuu jannada firdaws aala nagu wada geeyo idinkii anaga waalidkiin iyo waalidiinta muslimiinba marka waxaan isku ognahay fi amaanillah assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh